sideen u radinaynaa marka qof uu na soo weeraro annaguna aan ognahay inaan bari nahay? neerfaha isku ridin, xanuun ha isku ridin, qofna ha dhibin. ilaahay ma jecla sidaa. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku amray inaad arrintaas samayn. adiguna nafsad ahaantaada kuma kaalmay doontid walaa qoyskaaga, mana nagu kaalmay doontid anaga ka muslimiin ahaan arrintaas, balse mushkilad ka weyn ayaa ka dhalanaysa. ma ahan kaasi xalka. xalku waa tacallumka saxda ah. haddii ay qaylinayaan, codkaaga hoos u dhig oo tartiibi. haddii ay caytamayaan, deganaantaada ilaali. haddii arrintu gaarto meel halisa, iskaga tag, ka tag oo u dhabar jeedi. haddii dhagaxyo ula kugu soo tuuraan, socodkaaga ku sii soco. ha milicsanin. nebigeennaba arrintaas ayuu ka sheegtay Daa'if, mana milicsan, waxna kuma oran. asaga iyo saaxiibkiisba waa ay tageen. dhiiggiisu aad ayuu u dareerayay ilaa kabihiisu ay qoyaan. malaguna isla xaaladaas wuxuu u soo bandhigay isla dadkaasi asaga loo diray waa qoomkiisii carabta, kuwaasoo aan seen xitaa xaqii martinimada iyo adeega. waxba maaha, keliya waxay ku tuureen dhagaxyo. isla xaaladdaa waxaa loo soo bandhigay in Allah uu ku daboolo dushooda labada buur ee Daa'if, keliya inuu waafaqo. markaa buu yidhi maya. arrintaa beddelkeeda waa uu u duceeyey. wuxuu ilaahay uga baryay inuu hanuuniyo dhabarradoodana uu ka keeno dad ilaahay caabuda keligii, shirkina aan u samayn. waa tan muhiimadeenna xaqiiqada ah. waa taas risaaladeenna xaqiiqada ah. walaalahayga wiilal iyo gabdho aan islaamka ku walaalownay, annagu akhlaaqdan ma aanan xaqiijin, balse waxaan samaynay waxa ka soo horjeeda wixii nala amray tamaaman. waana taas sababta ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaas uga tagay oo ay wixii samaynayeen ay kusii socdaan. taasi waa qadarka Allah. ilaahayna wuxuu ka yeelay inay arrintaa dhacayso. maxaa yeelay aniga iyo adiguba uma aanan gaarsiin risaaladii dadka sidii saxda ahayd. hadday dhicin, haddaanan isbedelin, ilaahay ma bedeli doono xaaladeenna. arrintaasina waa wacdi ku sugan qur'aanka. ilaahay wuxuu leeyahay, waxaan isku dayi doonaa inaan af Soomaali u tarjumo. ilaahay ma dooriyo xaalad ay qoom ku sugan yihiin ilaa ay ayagu waxa ay ku sugan yihiin iska bedelaan. ilaahay waxaan ka baryayaa hadda inuu meesha wanaagsan noo bedelo. ilaahayow inoo doori dhanka wanaagsan. naga aqbal yaa Allah, oo naga yeel kuwa qaada risaaladii rasuulka, nagana yeel kuwa raacaya risaaladaas oo dadka kalena ku gaarsiinaya dariiqadii saxda ahayd. nagana yeel kuwa isdahiriya oo wax u gudbiya xaalka ugu wanaagsan, inagoo adeegsanayna aaladahana la siiyey. wanaajinaya adeegsiga internetka oo aan xumaynaynin adeegsigiisa. wanaajinaya aaladaha iclaamka aanan xumaynaynin adeegsigeeda. wanaajinaya adeegsiga kanaaladeena telefishinada inta aan awoodno. aamiin.